siyaasiga Nuur Faarax Xirsi oo xilligan ka mid ah dadka uu ku jiro damaca yahanka siyaasadeed ee Soomaaliland ayaa habeenkii xalay ahaa kulan ballaaran ugu qabtay hotel Ramad ee magaalada Burco qaar ka tirsan dhalinyarada gobolka Togdheer kuwaas oo isku xog wareysanayay waxaanu ahaa kulankani mid ay ka soo qayb galeen in ka badan 200 oo dhalinyaro ah oo u badnaa ardayda jaamacadaha iyo waliba ardayda dugsiyada sare ee gobolka Togdheer waxaana ugu horeynba kulankaasi ka hadlay siyaasiga Nuur Faarax Xirsi oo sheegay in kulankani uu ka mid yahay kulamo ay muddooyinkii u dambeeyay ay la yeelanayeen qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka Togdheer kaasi oo ku taxalluqa sidii bulshada ay uga urursan lahaayeen afkaarta la xiriidha samaysashada urur siyaasadeed ay bulshada Soomaaliland u dhan tahay waxaanu siyaasiga Nuur Faarax Xirsi intaasi ku daray in mowqifkooda samaysashada urur siyaasadeedku ka duwan yahay qorshaha daalay ee bulshada Soomaaliland inta badan la hortaagnaa maxaa khaldana oo radii hore siyaasiga ka khaldana oo loo baahay maanta inaan qaladka dib loogu celiyo ta koowaad ee noo soo baxday waxay noqotay ururada siyaasiga ee hore sidii ay u dhasheen waxa ahayd si aan wanaagsanayn si aan sax ahayn maantana waxa loo baahan yahay in saxiitaan lagu sameeyo sida uu u dhalanayo urur siyaasadeed oo kasta oo Soomaaliland ka dhalanay waayo waa inaynu horumar gaadhno waa inaynu korro oo inaan halkii hore taagnaan sida ay noola muuqatay ururada hore siyaasiga waxay ku dhasheen in qof xataa qof kula ama koox ama group ay intay qol xidhaan ay yiraahdaan urur siyaasi aan sameeyno magaciisu waa fulaan calaamadiisu waa sidaas xeerkiisu waa sidaa hebel baa chairman ka ah hebel waa ku xiga hebel xogeeye guud buu ka yahay sidaa la yiraahdo sida marka la yiraahdo kadib xeerkii la qoro in dadka loola yimaado urur siyaasi aan fureeyo deena taageero nagu soo biira tani waa khaladka ugu weyn ee ka jira nidaamyadii hore ee xisbiyada hore loo sameeyay taasi waxay keenaysaa inaan meesha tala wadaag oolin waxay keenaysaa in cid gaar ay wax wadato oo ay jandaleed laakiin ururka siyaasiga waa inuu dhasho dadku ma aha xoolo ma aha xeraan oo tee soo gala ay macallin taan noqonaysaa magacii baan sameeyay calaamadii baan sameeyay xeerkii baan sameeyay madaxdii baan doortay idan urur baan sameeyay marka waxaan idinka rabaa inaad soo gashaan saasay taasi waxa weeyaan xero aan oo tee soo gala dadkuna xooluhu baa inta xero looga soo gala oo dabeetana albaabka laga fadhiistaa oo hadhowna lagu murmahay oo la yiraahdo marka dooda ka qaadana ay dareeraan marka dad ku oodana ku oodmaan dadka sida loo dhaqmi karo binaadamku waxa weeyaan waa in la xurmeeyo aqligooda iyo xurriyadooda iyo garaadkooda waa in la xurmeeyo runtii waxaan u qabaa anigu taas inay meel ku dhac ku tahay aqoonta iyo aqliga iyo ixtiraamka iyo garaadka dadka ay ku tahay waxaan markaa anagu qabnaa inta laga guuro maanta sidii beelaha looga guuray nidaamkan wixii ka qaldan xisbiyada siyaasiga in maanta laga guuro la saxo oo kuwa imika dhalanaya ay nidaam sax ah ku dhashaan waxa kale iyaguna halkaasi ka hadlay qaar ka tirsan dhalinyaradii kulankani ka soo qayb gashay waxaanay tilmaameen inay garab istaagi doonaan siyaasigani daada yar isla markaasna ay diyaar u yihiin inay taageeraan cid walba oo qorshe iyo barnaamij cusub la hortimaada bulshada Soomaaliland geesta kale waxa uu intii uu kulankani socday halkaasi siyaasiga Nuur Faarax Xirsi ay dhalinyaradu ku weydiisay su'aalo la xiriira samaysashada urur siyaasadeedkoodani iyo waxa uu kaga duwanaan doono ururadii hore loo sameeyay kuwaasi oo dhammaanba uu si hufan uga jawaabay siyaasigani jaamac dheego isaguna ka mid ah xubnaha urur siyaasadeedkan la filayo in Soomaaliland lagaga dhawaaqo ayaa erayo kooban halkaasi ka soo jeediyay isaga oo si gaar ah u faahfaahiyay in samaynta urur siyaasadeedkooda inuu yahay mid ku yimaada barnaamijkiisu rabitaanka dadka gaar ahaan tala wadaag dhex mara bulshada Soomaaliland ugu dambeyntiina siyaasiga Nuur Faarax Xirsi ayaa maalmihii ugu dambeeyayba kulamo kula qaadanayay magaalada Burco qaybaha kala duwan ee bulshada gobolka kaasi oo kala tashanayay samaynta urur siyaasadeed loo dhan yahay oo ku yimaada rabitaanka dadka iyo waliba tala wadaag dhex mara bulshada Soomaaliland waxaana la filayaa in maalmaha soo socda siyaasigani uu barnaamijkiisa u gudbin doono dhammaanba gobolada Soomaaliland maxamed Aawad maxamed shabakada caalamiga ee Odweyne News Burco